Xaliimo Cali Xasan oo ah haweeney degan dalka Sweden ayaa maanta isbitaalka guud ee magaalada Gabiley ugu deeqday dawooyin kala duwan iyo qalab casri ah oo isugu jiray shaybaadho iyo qalab kale oo caafimaad isla markaana isbitaalka magaalada Gabiley waqti xaadirkan aad ugu baahnaa waxaana deeqdan si toos ah loogu wareejiyay agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Gabiley Dr. Deeqa Cumar Xaaji Saciid waxaana goobjoog ka ah deeqdan maayarka degmada Gabiley Shacaib Maxamed Muuse xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi iyo agaasimaha waaxda cashuuraha ee dawladda hoose waxaana ugu horeyn deeqdan faahfaahin ka bixisay Xaliimo Cali Xasan oo ah qof muwaadin oo ka soo jeeda dalka Soomaaliland isla markaana daawooyinka isbitaalka Gabiley ugu deeqday si naxariis leh iyadoo horena isbitaalka caasimada Hargeysa ugu soo deeqday dawooyin iyo qalab caafimaad oo noocan oo kala waxaan ahay qurba joogtii ka timid Sweden magacayga waa Xaliimo Cali Xasan marka waxaan ku soo deeqay alaabta qalabka dhakhtarka ayaan ku soo deeqay wadankeena Soomaaliland qayb waxaan si Hargeysa qaybna waxaan keenay halkan Gabiley marka ala kulli xal insha Allah hadhow waxaan rabaa in ka badan in kaagu aan soo saaro inta waa samples weyn aan igu soo talagalay waxaan la soo koray diyaaradan la soo koray marka insha Allah hadda waxaan bilaabay qorshahan inaan alaab badan inaan aruuriyo dhakhtarkii baan la hadlay director-keena aan la hadlay dhakhtarkaaga Sweden waxaan ku wixii sariiro la tuuriyo iyo wixii wheelchairs la tuuriyo in meel ay dhigo si aan bakhaar ugu aruuriyo marka hadhow transaankaaga u soo saaro insha Allah aan wadankeena ku deeqo ma Hargeysa iyo Gabiley kaliya Soomaaliland sida u dhantahay insha Allah in aan meel kasta u gudbiyo ayaan jecelahay marka insha Allah isoo duceeyo wax kasta in Ilaahay khayr ka dhigo wakaas Dr. Deeqa Cumar Xaaji Saciid ayaa u mahad celisay Xaliimo Cali Xasan oo ay ku tilmaamtay shakhsi dadaalaya oo dadkeeda caawinaysa aad bay u mahadsantahay Xaliimo deeqda ay noo keentay jaaliyadeena ka timid maxay haytay Sweden waxyaabo fara badan maxay haytay oo wax qabanayana way ku jiraan wax fara badan oo loo baahayna waad keentay insha Allah taala waxaan intana waa sample waxay ku siin doontaa insha Allah reflection waxyaabo fara badan iyo meelaha aad keeni doonto iyo waxay dadkeena u baahan yihiin insha Allah taala waxa weeyaan waxa la yiraahdo maxay haytay rasuulka yiri wallahu fi awn al-abd ma kana al-abd fi awn akhihi waxa weeyaan waan isgargaarsanayna dadkeenu baynu wax u qabanayna insha Allah taala inta ay in ka badanna way sugan insha Allah ugu dambeyntii maayarka degmada Gabiley Shacaib Maxamed Muuse oo isagu qalabkani uu ku yimid dadaal uu ka sameeyay socdaalkii uu ku maray qaaradda Yurub oo lagu magac daray socdaalkii horumarka isla markaana la filayo in maalinta ka dambaysa ay yimaadaan qurba joogta ka soo jeeda gobolka Gabiley kuwaas oo gobolka ka fulin doona horumar kala duwan oo ay sabab u tahay socdaalkii maayarka magaalada Gabiley Shacaib Maxamed Muuse oo ku kala bixiyay qaaradda Yurub inta kadib runtii wax farxad weyn oo maanta horta waxaan u ducaynaynaa walaasheen Xaliimo oo leenahay runtii waan kaaga mahad celinaynaa sida qiimaha leh ee wanaagsan ee aad wadto guud ahaan wadankaaga u xusuusatay aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa mar labaad waxaan kaaga mahad celinayaa runtii markii koowaad Xaliimo waxaan isku aragnay magaalada Stockholm ee dalka Sweden goobtii aan si xasuusto waxay baan filaa shista bay ahayd waxaan isla soo qaadnay ay sheegtay in Soomaaliland alaab u sido gaar ahaan maaragtay isbitaalka Hargeysa waxaan ka codsaday markaa inay Gabileyna raaciso waana iga aqbashay isla markiiba markaa uga sheekay isbitaalkeena baahiyaadkiisa iyo waxaan ay siday qalabka qiimaha leh sideen u baahanahay isbitaalkeenu aad ugu baahan yahay runtii markiiba iga aqbashay way soo kordhisay ku talagalkeedu laakiin waxa markii hore Soomaaliland oo Hargeysa ay keento laakiin markii aan Gabiley u gudbiyaan ku yiri isbitaalka Gabileyna uu ku baahan yahay alaabta aad sidana kama maarmo way qaadatay oo alaabtii noo keentay walaal waxaan kula wad ku mahadsan tahay oo maalin Ramadaan oo ku ducaynayna waxaan ku leenahay Ilaahay ha ku barakeeyo shaqadaada iyo camalkaagaba waxaan aad ka soo saartay iyo kharashka aad ku soo bixisayna wax khayr qaba oo kale Ilaahay kugu bedelo talabaad isbitaalkeenu maanta Gabiley ahaan dawladdu u baahan yahay baahiyaadkiisu waa badan yihiin maalinba markuu soo marayay hadayaan kaaga warramo runtii shalay halkan waxay ahayd meel banaan oo aan waxba ka dhisnayn maanta runtii dhismihii iyo dhaqaatiirtii doctoradii wax u bartay dadkan hadda halkan joogay mas'uuliyadda haya oo dadkii Gabiley ku dhashay wax u bartay oo dib ugu soo noqday runtii aad ugu macalin oo jecelahay weey
xaliimo cali xasan ayaa runtii haweeney ku dadaalaysa sidii baahiyaha caafimaadka looga hagabtiri lahaa isbitaalada Somaliland iyadoo isbitaalka caasimadda Hargeysa ugu deeqday qalab noocan oo kale ah isla maantana ugu deeqday isbitaalka magaalada Gabiley isla markaana ballan qaaday mashaariic kale oo caafimaad haweeneydan xaliimo cali xasan oo iyadu kamid ah howlwadeennada caafimaad ee ka howlgala isbitaal ku yaala dalka Sweden xaliimo cali xasan oo iyadu ah haweeney ka soo jeeda dalka Somaliland ayaa runtii shakhsi ku dadaalaya sidii horumar loo gaarsiin lahaa baahiyaha caafimaadka ee bulshada Somaliland ay tabayso waa Jaafar Awil Hereri shabakada wararka ee Gabiley News magaalada Gabiley